fanaanada qaranka Soomaaliyeed Saada Cali Warsame oo baryahan booqasho ay ugu kuurgalaysa xaaladda nololeed ee Soomaalida qaxootiga kuwa dalkan Kenya ayaa booqasho ku tagtay xerooyinka Dadaab oo ay ku jiraan ku dhawaad nus milyan Soomaali ah oo ka soo cararay dagaalada iyo abaaraha ka jira Soomaaliya ee isbiirsaday. fanaanada Saada Cali Warsame oo ka mid ahayd xidigihii fanka Soomaaliyeed iyo tiirarkii kooxdii Waaberi ayaa dalka Mareykanka uga timid si ay ugu qaranto qaxootiga Soomaaliyeed oo qaarkood ay ku jiraan xeryaha qaxootiga muddo gaadhaysa 20 sano taasoo ka soo horjeeday heshiiskii Geneva ee sharciga qaxootiga oo dhigayay inuusan qofku qaxooti ahaan karin muddo ka badan 8 sano. mashruuca wacyigelinta qaxootiga Soomaaliyeed oo ay madax ka tahay Hodan Naaleeye oo safarka kormeerkan ka codsaday inay la samayso fanaanada Soomaaliyeed Saada Cali Warsame maadaama ay tahay qof magac iyo sumcad ku dhexleh bulshada Soomaaliyeed oo ay ula hadli karto hay'adaha qaramada midoobay si ay wax ugu qabtaan shacbiga Soomaaliyeed ee tabaalaysan. Saada Cali Warsame waxa ay soo kormeertay xerooyinka Ifo iyo Dhagaxley oo ka tirsan Dadaab waxayna la hadashay qaxootiga Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugnaa si ay niyadda ugu dejiso iyadoo sidoo kale tan kula dardaarantay inay niyadda ku hayaan sidii ay kaalin uga geysan lahaayeen Soomaaliya oo nabad ah oo ay dib ugu laabtaan. 91 ilaa hadda aad ku jirtaan ayaan doonayaa inaad la qaybsado waxaan u imid xanuun iga haya dhibaatada idin hayso halkan u joogtaan waxaan idin sheegayaa ilaahay baa idin maqan rabbiga weyna waaxidka tala saarta idinkuna aqli keena aad ku dhisataan dawlad maamul ku samaysataan dhibtan aad kaga baxdaan oo dalkiina aad dib ugu noqotaan gacan ibna aadan idin ma baahi tirayso ilaahay baa idin baahi tiri kara iyo idinkoo aqli keena oo aynu dalkeena dib u dhisano oo aynu maamul samaysano aynu beeraheena falano aynu ilaahay u noqono ayaa ina baahi tiri karta waxaad ogaataan inaan gaal iyo muslimina gacantiisu idin baahi tiri karin nin waliba gacantiisu biyo kaga dherga Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya tooso isku kiirsaday hadbadiina taagdaranay taageera weligiine waynu guulaysanaynaa midnimadana ha la ilaaliyo. booqashada Saada Cali Warsame iyo sidoo kale Antonio Guterres ayaa ku soo aadaysa xilli ay maalin walba soo gaadhayaan xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya kumanaan qoys oo Soomaaliyeed kuwaasi oo ka soo cararaya macaluusha iyo deganaansho la'aanta isbiirsaday ee ka jira wadankeena. booqashooyinka noocan oo kale ah ee ay dadka magaca iyo sumcadda ku dhexleh bulshada Soomaaliyeed ay ugu qareemayaan walaalahooda qaxootiga ayaa laga rajo qabaa in ay nugul ku fiiriyaan hay'adaha hawshan ee khusayso. كاركون وتاعي صوتهم بريء وحالسين نرى مسين هيا ما نقل إمالة قدام قدام نقول أنا هاي أنت ديوس على سكتة رهني دم هذا هايني باهي هايس باهي أنا مال وكل إمادة نم بمال بكل إمادة خدني إمادة ماشي أنا لقو حرام بونا لقو حردك كار بالسي غاركيس قارنا بونا كحر كار ميل وحلسي مال بالصدق كذا للجوجا ده كنيك أوير راشين لما سين واحد لقو هيدي يواحد قلب يواحد راشين من الله مالك مالي بالله مالي كإمادة ندي هذا حدا إمادة هذا وإحنا لا هذا وين هذا كار بونو هايستا وحباك ما هايستا كارنا هذا مهري هو كار هايستا أنا كارك بعد سوسي وحباك ما هايستان راشين مال صد بري واجونا هوي مالها وعي هايستان مالها أنت جاري سال كنت ما دنا لكن ما صلوا قسم ولا كنت واصلوا وين Saada Cali Warsame fanaanada qaranka ayaa intay xerooyinka ku sugnayd waxay halkaasi kula kulantay ninka ugu sareeya hay'adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay waxayna ka codsatay in shacbiga Soomaaliyeed loo naxariisto. We need help. You need to put that in a written because that has to do with the American program of resettlement. Yes, I know. And for me to be able to talk to all colleagues of the Bureau of Population, Refugees and Migration. Yes. No, the Bureau of Population, Refugees and Migration, United States. Yes. In charge of the resettlement. Yes. I need to know exactly what you want. I know, and you have the power to help Somalis. Our dignity as human beings is being ruined 20 years in this camp. And this is Saada Cali Warsame, who is from Somalia. I'm well known back home. I'm an American citizen. So we want to know what's the plan
after 20 years, our people is suffering in here. Please, you are the High Commissioner. Hold on, take a picture. To increase the number of resettlements. There are some lady who told me about difficulties in resettlement. Yes, my son's grandmother is in here. So what I would like to ask you, please, is if you can put in writing those difficulties for me to contact the American Bureau of Population, Refugees and Migration to see if they can change the criteria. We need the AOR to open again. There's 30,000 American Somalis that want to sponsor their families that are suffering in here. As you know, this is a decision taken you by can the make government it. of the US. You can make but it. You need to. P3, Can you write? Can you write that thing in This lady, for me to be able to her daughter, David. be able to insist exactly on what is the reason. Okay? Nice meet. My contact is very simple. Thank you. You know the responsible. maxamed axmed ilkacase telefishinka qaranka nairobi